Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta ku xiran janaalkeena Somali Engineers Association. Maanta waxaynu idin haynaa muuqaal cusub oo aad ka faa'iideysan doontaan insha Allah. Muuqaalkani maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay application kuu aqrin doona dhammaan buugaagta kugu kaydsan mobilkaaga asagoo u bedelaya cod ahaan buugaagtaasi iyo waxa ku dul qoranba. Application-kani ayaa noqon doona mid aad u faa'iido badan oo aad ka faa'iideysanaysid xilliyada aad mashquulsan tahay oo aadan awoodin inaad akhriso ama aad fiiriso mobilkaaga si aad u akhrisid. Magaca application-kani ayaa waxaa la yiraahdaa haddaan idin sheego PDF Studio. Waa kan aad u jeedaan waa midka ugu horeeya application-ka. Culeyskiisuna waxa uu ka yar yahay 4 megabyte oo keliya. Saad u jeedaan size-ka application-kani oo ah mid aad u tayo badan ayaa ah mid free. Waa uu install gareysan yahay. Haddaan idin yara sharxo application-kani qaabka uu shaqeeyo, waxaynu galaynaa gudaha application-kani iyo sida uu u muuqdo. Marka ugu horeyso oo aad furtid application-kani ayaa waxa uu kusoo muujinayaa page-kani oo ah start ayaad riixaysaa. Kadibna 3 option ayuu ku siinayaa. 3daasi waxaad dooranaysaa midka ugu horeeya ama midka ugu dambeeya si aad cod ahaan ugu dhageysato. Haddaynu doorano tusaale ahaan midka ugu horeeya, option-ka koowaad oo listen with original view, ayaa waxa aad maqlaysaa PDF-ka asagoo coda iyo qaabkiisa saxda u qoran. Kadibna waxaad dooranaysaa luqadda aad ku dhageysan doontid. Waxa uu leeyahay saad u jeedaan ilaa dhowr luqadood oo tiro badan. Waxaynu dooranaynaa English, gaar ahaan midka UK-ga amaba wax loo yaqaano British accent, dhawaaqa British-ka ah. Waa aad u ogolaanaysaa. Haatan waxa uu kuu keenay dhammaan buugaagta ku kaydsan mobilkaaga ee u qoran PDF-ka ahaan. Tusaale ahaan, haddaan soo qaadano application-kani ayaa waxaa xusid mudan in uu ku shaqeeyo internet la'aan. Kadib markii aad doorato luqadda, looma baahno wax internet si uu u shaqeeyo. Haatan waxaan xirayaa internet-ka si aad u dhageysataan internet la'aan. Tusaale ahaan, haddaan soo qaato buuggan oo ku qoran sheeko Ingiriisi, waxa uu u bedelayaa cod ahaan. The Man Who Escaped. Episode 1. Edward Coke used to be an army officer, but he is in prison now. Every day is exactly the same for him. It is winter now and Coke and all the other men get up at 6, when it is still. Sida aad maqlaysaan dhageystayaal, halkan marar qaar waxa uu kuu soo bandhigayaa xayeysiin. Waa aad ka gudbaysaa meesha sare ayaad riixaysaa, balse waxaad kaloo aad taxakumi kartaa ama controli kartaa codka levelkiisa iyo weliba xawaaraha codka. Sida aad u jeedaan marka aad gashid. Dhammaan akhyaarta ku xiran Somali Engineers Channel waxaan leeyahay ka faa'iideysta, nala share gareeya, la wadaaga asxaabtiina application-kani aadka ugu muhiimka. Haddii ay tahay markaagii kugu horeysay oo aad soo booqato Somali Engineers Channel, fadlan riix subscribe si aad u hesho dhammaan muuqaalada aynu soo dhigno.